قد موجودين انا نفس عمله بعد بوسكي جاي يستهي انت كده لسه تكتيم اوكي يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. maanta oo taariikhdu tahay 29 bishii saddexaad waxaa shir isugu yimid odayaasha dhaqanka ee beelaha Muqdisho iyo beelaha Muqdisho isugu yimid gabdhahooda siyaasiyiintooda dhaqankooda shiray isugu yimid shir nabadgelyo waxay ka soo saareen baaqaasoo laba kelimo ah marka ugu horeysa in doorasho loo wada dhan yahay oo xalaal ah oo ummadda ku wada qaransan in dalka dhacdo oo dib loo dhigo waa qodobka labaad waxaan baryahan maqlayni baarlamaanka fadhiya waxbuu kordhinayaa 2 sano 3 sano waxbuu kordhinayaa taasina waa diidnay hal daqiiqo inaan ugu diro dalku doorasho ha aado ninka ku guulaysana waa lala shaqayn doonaa insha Allah tacaala laakiin dalku doorasho ha aado ودرسة سنة مجد واديني وحلو در هذا بلا تيق هذا بلا تيق صلى الله وسلم على رسول أي وحقق داوديال halkan waxa ku soo gabagabowday shir jir ay yeelanayaan odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Banaadir waxay la shireen raahda golaha midowga musharaxiinta laba madaxweyne hore ra'iisul wasaarihii hore ra'iisul wasaar ku-xigeenkii hore iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golaha midowga musharaxiinta waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka odayaasha waxa ay sheegeen in muddo kordhinna la aqbalay isla markaasna wada kale oo qaldan oo doorasho loo aadanaysan aqbalaynin muhiimna ay tahay in doorasho heshiis lagu yahay la aado sidii 17 September heshiiskii la gaaray oo kala dhameystirkiisa sida aragtaan odayaasha hadda ay shirkooda jira soo gabagabeeyeen waxaad nagala socoteen Universal saaxiibayaal mahadsanidin